bixinada kalena ayadan hadda ii muuqdan waxaa kamid ah saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Taglaf oo Kamaal Xasan hogaamiyaha oo ka yahay saaxiibayaal tiimka filimkan iskale oo Kamaal Xasan oo ugu weyn yahay istiraatiijiye fiican ayay u dejiyeen saaxiibayaal filimkan hadda qorshaha wuxuu ahay 15 ilaa iyo 10 bisha May in laga soo daayo inta u dhaxayso gooska filimka in laga soo daayo ayuu qorshaha ahay saaxiibayaal laakiin hadda qorshihii waa uu isbedelay sababtoo isku bedelana waxa waaye mowjadihii kacsanaay Pakistan iyo Hindiya dagaaladii iyo wixii iyo kacsanaay marka waxa waaye qof walba oo Hindu ah ama qof walba oo Hindi ah qorshihii uu lahaayo dib ayuu u lalaqay amarkaan filimkiisa dib ayaa gooska looga soo daayay waad aragteen marka qorshayaal far badan oo filimada ay lahaayeen ayaa dib loo dhigay hadda marka istiraatiijiyada filimka Taglaf hadda ayaa la soo cusboonaysiiyay saaxiibayaal dabka ayaana laga soo qaaday tiimka filimkan marka waxay leeyihiin waxa aan baqaadeena ayay dhaheen qorshayaasheena iyo xayeysiinta iyo promotionka filimka lagu magacaabo Taglaf waxaana bilaabeena ay dhaheen horta 17 bisha May marka la gaaro sabdiga soo aadan markii la gaaro adigoo hadda waxa waaye bari jimca waaye sabdiga markii la gaaro 17 May markii noqoto waxa la soo deey doonaa gooska filimka Taglaf oo Tamil ah Tamil ah ayaa la soo deey doonaa saaxiibayaal markii sidaas xaaladda ay marayso after 6 maalmood kadibna waxa la soo deeynayaa after 5 maalmood kadibna waxa la soo deeynaa gooska asagoo aftalagu ah filimkan ayaa la soo deeynaa saaxiibayaal labadaas goos ayaa laga soo deeynaa 17 bisha May waxa la soo deeynaa gooska asagoo aftamil ah halka 22 bisha May markii la gaaro asagoo aftalagu ah la soo deey doona saaxiibayaal markii la gaaro 24 May magaalada Janaay waxa loogu qaban doonaa saaxiibayaal bandhig weyn oo lagu soo bandhigi doono heesaha iyo filimka iyo marxaladaha oo soo maray iyo directorka iyo adigu halkaas ayaa la isku wareysan doonaa xaflad weyn ayaa magaalada Janaay lagu kala kacsan doonaa sidoo kale isla bishaas dhamaadkeedana waxay aadi doonaan magaalada Mumbai New Delhi dhulkaas ayay ku soo wareegi doonaan sidoo kale afhindina filimkan waa lagu codeeyay oo waxa la yiri 8 isbuuc ayuu tiyaatarada oo saarnaa doonaa filimkan lagu magacaabo Taglaf saaxiibayaal waa fiican taaba 8 isbuuc beel la waay anaga waxa waa hadii afhindiba lagu soo codeey asagoo la soo xaray habeenka ugu horeyso maalinta ugu horeyso tiyaatarka la saaro maalinta lagu ku xigto ayaan behelaynaa hadiiba afhindi lagu codeey waxa waa ayaantan afhindi waa jabeen adi waa noo jabeen waxa waa diasporada oo waxaan nahay hindiga saaxiibayaal marka anaga labaad waa helaynaa marka sidaa darteed filimkan hadda waxaa lagu soo waramaa marka 17 bisha May markii la gaaro ayaa gooska koowaad ee asagoo aftamil ku baxayo ayaan heli doonaa saaxiibayaal filimkana 5 June ayaa la daawanaa sida hadda warbixinadu ay sheegayaan saaxiibayaal kala saaxiibayaal filimkii lagu